faysal cali waa la yidhaahdo oo halkaa hargeysa inuu joogo aan filayo oo taageeraya shir dadka deegaanka magaalada muqdisho degan ay qabsadeen wiigii lasoo dhaafay. dabcan hadduu magac qabiil ku hadlayo amba oda dhaqameed ku hadlayo waa u furan tahay beeshiisa asoo ka wakiila inuu la fiicnaato shirkaas sida loo abaabulay iyo shirkaasi sida u dhacay iyo ka tashiga aayaha ummaddaas. laakiin hadduu magac xisbi iyo magac siyaasadeed ku hadlaya sida ka muuqata dadka hadlay axsaab maahayn ee waxay ahaayeen dad qabiila oo danahooda ka hadlay. faysalow markaa dad wax taageerayso kuwa kula dhashay muqdisho jooga ee hadda kuraasta qaranka ugu sarreeya xilligan ood adigu eedeynaysood lahaaday ma ahayn kuwaasi inay meesha ka taliyaan ee idinkaa saxane dowladda la dagaalama. taas waxay la tahay ma qabato dadka aada u sheegtay sidaas waana ka wen yihiin. dadka shirkaas dhigtay waa dad qabiil ah danahooda gaarkaana ka tashanayay arrimahoodana ayagaa u madax bannaan. xisbi adigu aada guddoomiye ka tahayna aaraa ugama baahna iyo inuu la taliyo. dad wax taageeraysa kuwa kula dhashay ee muqdisho jooga ee bosishanada muhiimka ka jooga qaranka soomaaliya kuwaa taageer kuna soo bir. laakiin awrkacsiga aada hargeysa ka dhex wado dad gara karaanahay inaanay waxaasi wax daacada aysan kaa ahayn. magaca qabiilkaad ka dhalatana hadda kumaad hadlayna xisbi aad ku hadashay siyaasadda adeer xisbiyaa waddanka ka jira xisbigaad ku siyaasataa ka taageer xisbiyada waddanka ka jira. laakiin xisbigaagu qabiilka aada sheegtay magaciisa iyo xisbigaaga wax kama dhexeeyaan taageerna kaagama baahna. ninkan odagana intaasaan leeyahay. dabcan shirka mudulad shir wuxuu ahaa loo baahnaa oo xilligiisa ku soo aaday dadka deegaankuna aayahooda uga tashteen. waxaad se moodaa hadda guddi horumarineeda ka soo baxay baa layidhi. guddiga horumarintana oday 90 jir oo yiri qoray ayaa cabaysana guddoomiye looga dhigay. marka horumar iyo qoray marka horeyba kala fog yihiin. waxaan rajaynayaa dadka kale ee ayaga aan qoraga u cabaysnayn ee beesha u dhashayo inay horumarka beesha ka shaqeeyaan. ninkii hadda qora u cabaysan yahana asaga dawaanan hadda weli ceyl qabee ciilkiisaasoon cidna kuma talaynin meeshuu la aadayo inuu la aado sidaasaan ku talin lahaa. dabcan waxay la tahay soomaalidu qoray iyo macnaha uu leeyahay iyo waxa lagu gaaro inay wada tijaabisa. laakiin cid hadday u dhiman tahay aniguma aaminsaneyn hadda ninkaa odaga in hadda u dhiman tahay in qora faa'iido leeyahay inay u dhiman tahay moodi ma ahayn. laakiin waa nin ra'yigiis. marka muduloodna waxaan leeyahay horumar iyo qora kala saara. horumarkiina iyo danihiina isma galan qoray cidan qoray aaminsaneyn u dhiibta ana ka shaqeyso danaha mudulood. cidda hadda caqdad iyo colaad qabtana ma aha inay magaca qabiilka ku gambato. waa la soo tijaabiyey horaa loo soo arkay qabiil qarankii dhamaayan laha inaan ku baabeennay. waxay la tahay marka inaan kala saarno horumar inaan ka fikirno iyo inaan qoryo cabaysano inaan isgelayn. waa rajeynayaa marka in shirkaasi guusho uu ku dhammaaday horumar u bedelanto haddii alla idmo. siyaasad shaqo kuma lahaynoo shir beeleedow ahaa. sidaad ka arkaysana de beelaha soomaaliyeed ama madaxda soomaalidu inta badan kelmad baa laga siiyey oo lagu sharfay. macnaheedu ma aha marka beel dagaal qabto ama beel caraysan inay beeshu ahayd. laakiin qof ra'yi waa qabi kariyaa. waa mahadsantihiin. aragtidii saaka intaasay ku eg tahay ama ku hadlaya magaca xisbiyada.